laba magaalo oo yaryar oo ku taala gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa markale isku dara tirada dadka ku nool waxa ay yihiin 173 qofood oo kaliya balse kumanaan qof oo wiligood aan tagin meelahaasi ayaa markii ugu horeysay tagaya. haddaba maxaa ku qaasa magaalooyinkaasi oo dadka inta la eg ay u tagayaan? labada magaalo oo lagu kala magacaabo Raygal iyo Higo oo u dhow saldhigga ciidanka cirka ee ugu weyn Mareykanka ee lagu magacaabo Area 51 halkaas oo la rumaysan yahay in dawladda Mareykanka ay ku hayso noolayaal ka yimid meerayaal kale oo la socday suxuunta duusha. waa arin qiyaali loo arko balse ku bilaabatay si kaftan ah. waxaa hadda jirta in labadaas magaalo lagu qabanayo laba xafladood oo waaweyn oo isugu imaanayaan kumanaan qof oo haddaba isii diiwaan geliyay. mana jirto wax qabanqaabo balaaran oo loo sameeyay xafladahani si ka duwan xafladaha kale ee dadka intaan dhan isugu imaanayaan. sidaas darteed waxaa hadda laga cabsi qabaa in musiibo bini'aadanimo ay ka dhalato meesha haddii wax yar uun qaldamaan. ninkii bilaabay kaftankan ee shabakada Facebook 4 bilood ka hor soo dhigay in noolayaal meero kale ka yimid lagu hayo xerada Area 51 oo magaciisu uu yahay Matthew Roberts ayaa hadda sheegaya in uu walwal ka qabo in musiibo bini'aadanimo ay meeshaasi ka dhacdo. ninkan ayaa Facebookiisa ku soo bandhigay qorshe ah in haddii la helo dad tiro badan oo mar kaliya jiiri karaan askarta waardiyaasha ah kadibna gudaha la gali karo si ay u soo arkaan noolayaasha qarsoodiga ah ee la rumaysan yahay in meeshaas lagu hayo. 3.5 milyan oo qof ayaa iska diiwaan gelisay bog uu ninkan Facebook ka furtay kuwaas oo sheegaya in ay ka qayb galayaan xafladda. balse waxa uu Maati sheegay in markii hore ay kaftan ka ahayd. mid ka mid ah dadkaasi ayaa BBC-da u sheegay in xitaa ay ka go'an tahay inuu xoog ku galo xerada ciidamada cirka ee uu rumaysan yahay in lagu hayo noolayaal laga soo qabtay suxuunta duusha nus qarni ka hor. Luara Mandres oo ah afayeenka ciidanka cirka Mareykanka ayaa dadka uga digay in ay u soo dhawaadaan xeradan. ciidamada sirdoonka Mareykanka ee FBI-da ayaa wareystay Mr. Maati wuxuuna u sheegay in uusan qorsheynaynin inuu halis geliyo amniga xerada. meeshan Area 51 loo yaqaano waxa ay muddo sanooyin badan ay ahayd meel ay booqdaan dad aaminsan jiritaanka noolayaal ka yimid meerayaasha kale. waxay dad badan rumaysan yihiin in dawladda Mareykanka ay xeradani ku hayso macluumaadyo ku saabsan suxuunta duusha oo la rumaysan yahay in ay kaxeeyaan noolayaal qalaad oo cirka ka yimid. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka aaminsan yihiin in qaar ka mid ah noolayaasha ay dawladda Mareykanka qabatay kuna hayso xaruntaasi Area 51 ee Nevada. fikradahani ayaa soo bilowday sanadkii 1989 xilligaasi oo nin lagu magacaabo Bob Lazar uu wareysi telefishin ku sheegay in uu ahaa saynisyahan ka shaqeynaya xaruntan. mar kale ayuu dhawaan shaashadaha ka soo muuqday ninkan. waxaa jira film laga sameeyay oo ku jira abaaxada Netflix taas oo laga yaabo in ay tahay sababta ay dadka mar kale u daneynayaan arimahani. Lazar ayaa sheegay in uu ka shaqeeyay mashruuca UFO ama suxuunta duusha isla markaasna uu akhriyay qoraalo dawladeed oo sir ah oo ka hadlaya noolayaal qalaad oo ka yimid meerayaasha sare. ma uusan soo bandhigin cadeymo muuqda mana lahayo diiwaano la xiriira aqoonta cilmi sayniska fiisiga uu sheeganayo. Thomas Buller oo qoray book lagu magacaabo The Mice and My Story of UFO ayaa sheegay waxa ay dadkana u rumaysan yihiin ay ugu wacan tahay kalsooni darada ay ka qabaan dawladda kadib dagaalkii Vietnam. sidaas darteed ay durba rumaysanayaan waxa ay dadka kala sheegayaan. goobaha kale ee dadka rumaysan yihiin in sir lagu qarinayo waxaa ka mid ah Roswell oo ku taala gobolka New Mexico halkaas oo shay cirka ka yimid oo ku dhacay sanadkii 1947. dadkan ayaa aaminsan in waxaan ay ahaayeen suxuunta duusha balse dawladda Mareykanka ayaa sanadii 1990maadkii shaacisay in waxaas ay ahaayeen buufin weyn oo tijaabada hubka nuclear-ka loo isticmaalayay. sidaas ay tahay dadka weli ma rumaysan hadalka dawladda Mareykanka. waxaan halkaas ku soo koobayaa mowduucii yaraa ee maanta. haddii aad tahay daawado ku cusub channelka subscribe si aysan kugu dhaafin barnaamijyada